مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. ma jeceshahay ilaahay inuu ku jeclaado? ma jeceshahay ilaahay inuu raali uu kaa noqdo? ma jeceshahay ilaahay inuu macaaga uu noqdo mar walba, kuu kaalmeeyo, kuu nusreeyo, wax walba ood u baahan tahay uu ku siiyo, ku hanuuniyo, ku jeclaado, ku soo dhoweeyo, ku toosiyo? ma jeceshahay? haddaad jeceshahay 7 astaamaan kuu sheegi uu ilaahay kugu jeclaanayo, raalli kaaga noqonayo, aad ugu dhowaanaysid. waa 7 sifo inaad ku sugnaatid. sifada koobaad waa alixsaan, waa inaad fiicnaatid. hadalkaagu inuu fiicnaado, ficilkaagu inuu fiicnaado, cibaadadaadu inay fiicnaato. an tacbud allaha kaannaka taraah, inaad ilaahay u caabudid sidii qof arkayo oo kale. inay akhlaaqdaadu fiicnaato, sidaasuu ilaahay kuu jeclaanayaa. ilaahay waxau ihi waaxsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin. wanaagsanaada buu ilaahay yidhi, darajada alixsaan gaadha. ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniin, kuwa wanaagsan ayuu ilaahay jecel yahay. ilaahay waxa uu yidhi liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada, kuwii wanaagsanaaday waxaa u sugnaaday alxusnaa, janna u sugnaatay, iyo waziyaada, iyo ziyaada u sugnaatay, janno iyo ziyaada. ziyaadadaasi waa annadaru ilaa wajhi illaah, waa wejiga ilaahay inay arkaan. ilaahaad caabudi jirta inaad aragtid, maxaa ka weyn, maxaa ka fiican? allahu akbar. sayidkeennii nebi ciise calayhi الsalaam waxa uu yidhi laysa alixsaanu an tuxsina ilaa man axsana ilayk. ixsaanku ma aha wanaaggu inaad wanaajisid qofkii ku wanaajiyey. tilka mukaafa'a, taa waxaa la yidhaahdaa wanaag oo qofkii u abaalgudday ayaa la yidhaahdaa. ixsaanku muxuu yahay? waxa uu yidhi an tuxsina ilaa man asaa'a ilayk, qofkii ku xumeeyey ood wanaajisid weeyaan. waa darajo sare. maxay ku gaadheen? inuu ilaahay raali u ka noqdo, inuu ilaahay jeclaado, inay jannada galaan, inay ilaahay arkaan. maxay ku jeclaadeen kuwaas? ilaahay waxau idhi innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin. waxay ahaayeen adduunka markay joogeen qaar wanaagsan bay ahaayeen, akhlaaqdoodu iyo qowlkoogu uu wanaagsan yahay. idan sifada ugu horeeya, astaanta ugu horaysa waa inaad noqotid qof fiican. calaamadda labaad, astaanta labaad uu ilaahay kugu jeclaanayo, raalli kaaga noqonayo, waxa weeye altawba, inaad ilaahay u toobad keentid, mar walba ilaahay aad u noqotid. ilaahay waxa uu yidhi ina allaha yuxibu altawaabiin. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa mar walba toobad keena ee ilaahay u noqda. ilaahay wuxuu doonayaa inuu toobada kaa aqbalo, dembiga inuu kaa maydho. ilaahay kugu farxayaa toobadaada. markaad ilaahay u soo noqotid, ilaahay kugu farxayaa. maxaa ka fiican marka? inaad ilaahay u noqotid, ilaahay u toobad keentid, ilaahay ku jeclaanayaa. towbaduna waa astaanta labaad uu ilaahay kugu jeclaanayo. ta saddexaad, ilaahay waxa uu jecel yahay uu kugu jeclaanayaa, uu raalli kaaga noqonayaa, waa atatahur, inaad isdaahir yeeshid, qalbigaaga inaad nadiif ka dhigtid,
jirkaaga inaad nadiif ka dhigtid dunuubta inaad iska maydhid iyo tahaaradii xisiga ahayd jasadiga ahayd wahiyaabaka fatahhir ilaahay waxa uu leeyahay wahiyaabaka fatahhir ilaahay waxa uu jecel yahay kuwaasi isdaahir yeela ayuu ilaahay jecel yahay ina allaha yuxibu altawaabiin wayuxibu almutatahhiriin kuwa isnadiifta ku dadaala iimaankooga iyo qalbigooga iyo caqligooga iyo jirkooga intaba nadiifiya nadaafadda ku dadaala taana ilaahay uu jecel yahay ilaahay baad ugu dhowaan raalli buu kaaga noqonayaa sifada afaraad oo alla kugu jeclaanayo kugu soo dhowaynayo darajo sare uu kugu siinayo ta afaraad oo alla ka cabsi ilaahay ood ka cabsatid ilaahay waxa uu leeyahay faina allaha yuxibu almuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa ka cabsada isaga cadaabkiisa ka cabsada cuquubadiisa ka cabsada naartiisa ka cabsada iska ilaaliya macaasida daacada ilaahay u orda kuwaasuu ilaahay jecel yahay shirkiga iyo xumaanta iyo dunuubta ka fogaada astaanta shanaad uu ilaahay kugu jeclaanayo sifadaasi waa asabr inaad sabir yeelatid ilaahay waxa uu leeyahay wallaahu yuxibu alsaabiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa sabra daacaadkiisa khayrka ku sabra maxaarimta ilaahay uu kaa xarimay ka sabra ka joogsada qadarka iyo masaa'ibka dhacaya ee qoran ku sabra kuwaasuu ilaahay jecel yahay ilaahay maxaa ka fiican jannada markuu ilaahay uu ku geeye ee jannada aad geshid ay malaa'igtu kugu soo gasho ay tiraahdo salaamun calaykum bima sabartum fanicma cuqba daar malaa'igtii baa soo gelaysa min kulli baab albaabada jannada waxay ku leeyihiin salaamun calaykum nabadgeliyo korkiina ahaato jannada maxaad ku gasheen waa bima sabartum sabirkiini awgeed daacadii ilaahay baad ku sabirteen maxaarimtii baad ka sabirteen qadarkii ilaahay ayaad ku sabirteen ta lixaad waa altawakul cala allah ilaahay ood tala saaratid asbaabta ood la timaadid aad ilaahay arrintaada u dhiibatid ilaahay wuu kugu jeclaan ina allaha yuxibu almutawakiliin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa tala saarta arrintooda hagaajiya dabadeed dadaala dabadna ilaahay tala saarta maaha asbaabta inaad ka tegtid oo tidhaahdid ilaahay ayaan tala saaranaya sababta la imo ilaahayna tala saaro acqilhaa watawakal tawakulkuna waa wuxuu ilaahay kugu jeclaanayo ilaahay muna kugu filnayn ilaahay waxa uhi alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay addoonkiisa muuna ku filnayn qofka ilaahay tala saarta ilaahay kugu filan yahay ta toddobaad waa cadaalad waa inaad la timaadid cadaaladda ilaahay uu jecel yahay awlaaddaada dhexdooda dadka dhexdooda naftaada xataa qof kale iyo adiga haddii aad isqabataan cadaalad yeel mar walba inaad cadaaladda aad ku dadaashid ilahay waxau le ina allaha yuxibu almuqsitiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda la yimaada cadaaladdan ku dadaama toddobadaa sifo ilahay kugu jeclaanayaa raalli buu kaaga noqonayaa waa u dhowaanaysaa jannooyinka ilaahay ayaad ku gaadhaysaa ilaahay haynagu arsaaqo sifaadkaa wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق